Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta xasuustii boqorkii saldanadii Mughal ayaynu maanta ka hadli doonaa ku soo dhawaada wax ka badan muddo qarni ah waxaa si la iska hilmaamay taariikhda iyo xasuustii boqorka ugu dambeeyay ee saldanadii xoogga badneyd ee Mughal taas oo ka talin jirtay dalalka Hindiya, Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan isagoo oo jeebisan oo xanuunsan ayuu ku dhintay magaalada Yangon ee dalka Myanmar halkaas oo gumeystihii Ingiriiska ay geeyeen isaga oo maxbuus ah. Waxa ay ahayd sanadkii 1862 wax yar kadib markii Ingiriisku uu jabiyay ciidankiisii. Bahardar Safar ayaa waxaa lagu aasay meel u dhow goobta caanka ah ee lagu magacaabo Swede Pagoda ee magaalada Yangon si qarsoodi ah. Saldanadii Mughal waxa ay talin jirtay muddo 300 sano. Safarna waxa uu ahaa boqorkii ugu dambeeyay ka hor intii aanan xukunka laga tuurin sanadkii 1857 xilligaas oo hormuud uu ka noqday kacaankii Hindiya ee Ingiriiska lagula dagaalamayay. Waxa uu si weyn ugu caan baxay gabayada afka Urduga waxaana lagu naanaysi jiray Safar, gabayadaas oo ilaa maanta la xifdisan yahay. Dhimashadiisii kadib ayaa waxaa meesha ka baxay mid ka mid ah boqortooyooyinkii adduunka ugu weynaa, balse xasuusta dadka waxaa dib ugu soo laabtay sanadihii 1980-kii xilligaas taxane telefishinka Hindiya ah uu soo baxay isaga oo laga metelay. Wadooyin ayaa sidoo kale loogu magac daray magaalooyinka Delhi iyo Karachi halka magaalada Dhaka meel darjiin ah loogu magac daray. Safar waxa uu ahaa nin mucjiso ah, gabya caan ah iyo hogaamiye Muslim ah oo udub dhexaad u ah xiriirka wanaagsan ee dadka Hinduuga iyo Muslimiinta, ayuu yiri William oo ah taariikhyahan darsaday sooyaalka boqorka. Waxa uu intaas ku daray in uu astaan dhab ah u ahaa ilbaxnimadii Islaamka si la mid ah awowgiis Boqor Akbar. Gadoodkii 1957 askartii Hindiga ahaa ayaa sameeyay gadood iyo kacdoon ka dhan ah ciidamadii British-ka ahaa 10kii bishii May wuxuuna ka bilowday magaalada Meerut kadibna waxa uu ku faafay magaalooyinka Delhi, Agra iyo Kanpur. Waxaa laga gadoodsanaa isku dayga Ingiriiska ee ah in ay soo rogaan dhaqanka reer galbeedka iyo weliba faafinta diinta Masiixiga. Kacdoonka waxa uu mideeyay dadkii Hinduuga ahaa iyo Muslimiintii waxaana ay madaxtinimo u doorteen Boqor Bahardar Safar. Ingiriiska ayaa soo abaabulay ciidamo kale oo Hindi ah waxaana dib loo qabsaday magaalada Delhi. Labada dhinacba waxaa lagu eedeeyay xadgudubyo bini'aadantinimada ka baxsan waxaana kadib ahaa Ingiriiska uu si wadar ah u laayay askar badan oo gadood sameeyay, halka ciidamadii gadoodsanaa ay laayeen carruur iyo haween Ingiriis ah. Kacdoonkii ayaa waxaa la soo afjaray bishii July waxaana ka dambeeyay in la tirtiray xukunkii maxmiyadda ee Ingiriiska iyadoo la soo rogay xukun toos ah oo Ingiriiska maamulayo Hindiya oo dhan. Qabriga Safar ayaa laga helay sanadkii 1991 kadib shaqaale dhismo oo dhulka qodayay oo soo faagay alaabihii tilmaamaha boqorka ee lala duugay. Qabriga ayaa kadib dib loo dayactiray wuxuuna astaan u yahay mid ka mid ah taariikhdii la yaabka lahaa ee soo maray Hindiya. Darbiyada waxaa lagu xardhay sawirro farshaxanno ah oo boqorka ah iyo qoraallo isaga ka turjumaya. Waxaa meel u dhow laga sameeyay madxaf lagu kaydiyo xasuusta boqorka Bahardar Safar waxaana halkaas sanad kasta booqda dad badan oo Muslimiin ah oo aad u ixtiraama boqorka oo sidoo kale ahaa wadaad diintiisa Islaamka ah. Waxaa laga yaabaa inuu lumiyay xilkiisii iyo boqortooyadiisii balse waxa uu ku guuleystay inuu kasbado malaayiin dad ah qulubtooda iyo habka noloshooda oo weli saameyntiisa ay aad u muuqato.